meelaha dadka badani ku kulmaan yarayso gacan qaadka inta lagu jiro waqtiga adag ee imtixaanka ah iyo sidoo kale inaad hilibka aadi karto. deegaanada Jubbaland waxaa ka socda dadaalo dadka looga wacyigelinayo khatarta cudurka halista ah ee COVID-19. hay'adaha amniga Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka ayaa qayb weyn ka qaadanaya dadaalada wacyigelinta ah. wacyigelinta waxaa qayb ka ah in la yareeyo khatarta ka dhalan karta goobaha dadku ku kulmo sida gaadiidka la isla raaco oo uu kala goosho xaafadaha magaalada Kismaayo iyo goobaha lagu tukaamaysto. Public transportation waana warunta meesha ugu badan ee baabuurta dadka ay raacayaan caasiyada baabuurta boostooyinka oo overcrowd waa meelaha ay trafficada xusayso. At the same time basaska iyo PL-da iyadoo awalba passengerka loogu talagalay ee in ka badan saarayeen oo aan habeen maalin dhib isku haynin oo lahayn war dadkan ka daaya ayaa haddana iyadoo cudurkii uu batay faafayana iyo weli wadaan inay dadka sii badiyaan iska dhaaf inay yarayaan. waan wacyigelinaa waan hadalnaa laakiin insha Allah kulay amar dadka ka soo bixi doono wasaaradda amniga iyo booliiska iyo trafficadu kulay waan shiri doonaa wixii ugu important waan samayn doonaa ee macquul ah.